يا المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الله تعالى في كتابه العزيز: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. الحمد لله. waxaa xasuus weyn oo nicmo ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka dhigay akbaru nicmatin daharat fii hada alkown. aanu xasuusanaynaa bishaan oo bishii rabiicu lawal ah, isla markaasna ah bishii saddexaad oo maaragtay sanadka hijriga. sanadka hijriyadana uu yahay 1443 la joogo. waxaa weeye taariikhdaanu taariikh maaragtay aad iyo aad u qiimo badan oo wax weyn lagu xasuusto, ilaahayna lagu shukriyo weye. waktigaanu bishii rabiicul awal ayaa 12 ah, hijriyaduna sidaas weeye. taariikhdan miilaadiyadu ayaduna waxaa weeye waa maaragtay maanta waxay maraysaa 18 waxaa weeye bishii 10aad oo oktoobar 2021. waxaan dadka muslimiinta khaasatan dadka Soomaaliyeed oo caalamka ku kala nool dal iyo dibad aanu la qaybsanaynaa farxad ilaahay subxaanahu wa tacaala uuna faray inaanu ku faraxno wax ilaahay subxaanahu wa tacaala uuna siiyo oo nicmo ah. wixii ugu weyn oo aynu ku faraxnana ah oo ah markaasi miilaadu rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam. rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam dhalashadii ou dhashay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala koonkan uu keenay isagoo bijasadihi wa ruuxii ah, isagoo ilaahay subxaanahu wa tacaala ambiyadii ka horeysay nabigeena calayhi salaatu wasalaam min abuuna aadam ilaahay uu kala dardaarmay oo uu sii sheegay kutubtoodana maktuub ou ku ahay waxa nabigu uu yahay calayhi salaatu wasalaam, ayaa taariikhdan miilaadiga markay aheeday 570 ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala bishaan hadda oo maaragtay qamariga ah oo sanadka maaragtay islaamku oo wax ku tirsada ah, ayaduna markaasi bishaan rabiicul awal ay aheeday 12 ayadoo maaragtay yoomul isnayn ay tahay, sida maantoo kaleba ay tahay yoomul isnayn. hadalkaa kaliibkan aynu duubayno ama aanu maaragtay ummadda aan doonayno inaanu maaragtay u hambalyayno farxaddaas, ayaa waxaa weeye rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ilaahay keenay koonkan isagoo jasadkiisa iyo ruuxdiisa ah. inaan nicmada ilaahay aanu xasuusanno oo aanu ka sheekayno waxaanu ka qaadanaynaa suuratu duxaa. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu dhahay markii rasuulkiisa nicmooyin badan oo ku tirtirsiiyey: wa amaa binicmati rabbika faxadis ow dhah ilaahay, rabbigaaga nicmadiisa ka sheekay. hadda mar nabiga calayhi salaatu wasalaam sidaas haddii la dhahay, amarkaasu waa caam waxaa la leeyahay maaragtay nabiga calayhi salaatu wasalaam keligiisa ma ahan. qof kasta oo muslima nicmada inuu ka sheekeeyo, sheekadaasuna waxaa weeye nicmada shukrigeeda weeye. marka inaan wixii nicmo ahayo aanu ka sheekayno oo aanu ilaahay ku shukrino oo aanu ku faraxno, wax aanu ka qaadanayno weeye nusuusta qur'aanka iyo waxaa weeye axaadiista rasuulka calayhi salaatu wasalaam. markaasi ma ahan shay oo dad mabda' gaara u aho iska ikhtiraacdeen ma ahan, laakiin waxaa weeye fahm jaa'a min kitaabillaahi wa sunnati rasuulillahi sala allahu alayh wasalam. marka maalintan maalin qiimo badan weeye. waxyaabo taariikhda dhacay oo la xasuustane oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam ba isaguba uu sameeyey oo weyneeyey oo xasuus u yeeshay waa ay badan yihiin.
oo nicmooyin ilaahay subxaanahu wa tacaala min nicamillaahi tacaala oo ilaahay koonkan keenay oo waqti haddana ku xadidan waqtigaas nabigu uu sheegay ee nicmadaas ilaahay uu ku shukriyey ummaddiisana uu u sheegay waa ay badan tahay. marka hadda qof kasta oo muslima wuxuu og yahay inaysan jirin nicmo ka weyn rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay adduunkan uu keenay. khalqiga ilaahay kii ugu khayrka badnaay weeye. sharafta ilaahay uu siiyey iyo fadliga alla uu siiyena rabbulciza kaliya ayaa garanaya. maxaa yeelay ilaahay subxaanahu wa tacaala suuratu nisaa waxa uu dhahay wa anzalnaa calayka alkitaaba waalxikmata wacallamaka maa lam takun taclamu wa kaana fadlullaahi calayka cadiima. wa anzala allaahu calayka alkitaaba waalxikmata ayaan dhihi lahay wacallamaka maa lam takun taclamu wa kaana fadlullaahi calayka cadiima. qaybtaa hadda aayadda ugu dambaysaa maxalushaahidka aan ka rabnaa. ilaahi subxaanahu wa tacaala rasuulkiisa isagoo nicmooyinkiisa tusaalaynaya ayuu wuxuu dhahay ilaahay kitaabka qur-aanka iyo xikmada oo maa fiihi min alaxkaami amba axaadiisa ayaanu kugu soo dejinnay. waxaadan aqoonin intaan ilaahay ku tacliimin ayaanu ku barnay. wa kaana fadlullaahi calayka cadiima. ilaahay fadligiisa oo ilaahay ku siiyey oo dushaada ilaahay saaraneh waa cadiimow dhahay ilaahay. marka hadda nabiga calayhi salaatu wasalaam maa laga warrama haddii la yidhaahdo cid ka hadli karta ma jirto. maxaa yeele wax qaacido kuliya ayaa jira oo haddii la xasuusto aan marnaba la keeni karaynin. wixii ilaahay cadamo ku sifeeyo, kasro ilaahay uu ku sifeeyo, kibar uu ku sifeeyo, alam uu ku sifeeyo, waxaas waxaa weeye qaayadooda rabbulciza ayaa garanaya. marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaahay abuuray kaliya ayaa gara kara, wax makhluuqa uu fahmi kara maahan. marka haddee annagu waxaanu u sheekayhayno oon u xasuusanayno oo markaa nabiga calayhi salaatu wasalaam bishaan oo mawliidkiisi ah dhalashadiisi ah aan maaragtay ugu farxayno oon uga sheekayhayno waxaan fartoomaynaa fahamka ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabka iyo sunnada uu naga siiyey oo nabiga calayhi salaatu wasalaam jaanibkiisana laka faray ayaanu fartoomaynaa. marka haddee waa kaas aho ilaahay subxaanahu wa tacaala fadliga ilaahay uu siiye nabiga waa mid cadiima, cid fahmi karta ma jirto. wixii aynu garanayno iyo inta aan maaragtay annagoo ay naga tahay shukri ayaanu la imaanaynaa. waxaana weeye haddii nicmada lagu shukriyo ilaahay waa siyaadinayaa oo ilaahay ballamuu ku qaaday. haddii lagu kufriyana ilaahay subxaanahu wa tacaala cadaab oo maaragtay adag ayuu ilaahay ballan qaaday. rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam akbaru nicmatin daharat fii hada alkown weeye. waa nicmo ilaahay midda uuna siiyey oo annaga ilaahay uuna siiyey haddaanahay ummaddiisii oo nicmada ugu weyn weeye rasuulka calayhi salaam. taas cid shakinaysa ma jirto. nicmadana hadda waxaa weeye in la sheego. ilaahay baa qur-aanka ku sheego wa amaa binicmati rabbika faxadisow dhahay. rabbigaaga nicmadiisa ku shukriyow dhah ilaahay ka sheekay. sheekaduna waa shukriga weeye. saasaa macnuhu isugu tegayaan, waana idiin siyaadinayaa. marka hadda qofkii nabiga ka sheekeeya, nabiga maxabadiisu ay ku weyn tahay, waxaa u badanaya wax kastoo xikmad ah, wax kastoo cilmi ah, wax kastoo fadli ah fi dunyaa waalaakhirati ayuu helayaa. calaashaan waxaa weeye nicmadii oo ku shukriyey. marka hadda intaan ummatul maxamedu waxaa weeye nabiga waa la jecel yahay rasuulka calayhi salatu wasalaam, maxabadiisuna waa waajib. laakiin inaan maalintan xasuusanno wax mustaxsan oo aad iyo aad u wanaagsan weeye, oon si gaara aanu maaragtay u xasuusanno mustaxsan weeye. maxaa yeele nabigeena calayhi salatu wasalaam dhalashadiisa asaga ayaa ka warramay. haddii la yidhaahdo yaa ka sheekeeye oo si khaasa maalinta uu dhashay u sheegay. maxaa yeele xadiis oo maaragtay abu qataada uu wariyey oo sanadkiisu saxiix yahayo imaam albukhaari ay wariyeen saxiixayna, ayaa waxa weeye nabiga calayhi salatu wasalaam maalin asxaabtiisa waxay weydiiyeen. waxay yidhaahdeen maaragtay su'ila xadiiskii waxau ahay abu qataada waxau dhahay su'ila rasuulullahi sala allahu alay wasalama can soomi yowmi alisnayn. maalinta isniinta soonkeeda nabiga laga weydiiyey. dadka markaa weydiiyahay maxay rabeen inay isniinta la soomo, maadaama nabigu calayhi salam isniinta uu soomi jiray ajirka laga helaayo muxuu yahay iyagu ka wadeen. laakiin nabigu calayhi salatu wasalaam waxuu tusayaa
maalintaasu waxa ay tahay iyo waxay ku mutaysatay in la soomo. markaasuu waxa weeye asagoon aadin jawowdoodii ayuu wuxuu dhahay daaka ayuu dhahay yoomun wulidtu fiihi wa yoomun bucistu fiihi wa yoomun unsila caleyh dhahay maalinta isniintaasou maahan waa maalintii lay dhalayow dhah rasuulku nabiga alayh salatu salaam maalinta aniga lay dhala way nabi maxamed alayh salatu salaam annaguna hadda waxaan ka warramaynaa naabiga maalintii la dhalaan ka warramaynaa nabigaan uga dayanaynaa calayhi salaatu wasalaam wa yoomun bucistu fiihi waa maalintii laysoo bixiyey wa yoomun unsila caleyh waa maalintii laygu soo dejiyey waxyiga intaasay kulansataa u dhaha isniintu. marka maqaamka iyo maaragtay weynaynta iyo inay ka soocnaato ayaamaha kala bacdigood waxaa keenay in nabiga alayh salatu salaam maalintaas lagu dhalay isagaana sheegay. waxaa marka lagu weyneeyey in la soomo. hadda soomu yowm lisnain waa macluum, qof kastood muslim oo awoodi kara waa ka soomaya. khamiista iyadana saas waa iyaduna waxyaabo kaloo iska leedahay. marka waxa weeye isniintii haddane sida taariikhda lagu haayo maalintii ilaahay oofsadeen yowmulisnain ay noqotay. yowmulisnain intaa nabigu calayhi salaatu wasalaam uusan ku dhalanin ayaamaha kaloo caadiga ahay ka mid aheeda wax gooniyana ma aysan iska lahayn. laakiin derajadaas waxay ku gaartay maadaama nabiga uu ku dhashay ayay waxay noqotay maalin astaysanay noqotay. marka in nabiga calayhi salaatu wasalaam maalin astaysan loogaga hadlo waa shay mashruuc ahoo maaragtay aan shareecada aan meerna ka khilaafayn, bal shay mustaxsana sida culummo badan oo ahlulcilmiga ay taqriiriyeen saas weeye. midda kaleentood waxaa weeye dadka gaalada ah iyo munaafiqiinta waxaa ugugu sugan inay maalintaas ay niyad jabaan oy caro geliso oy ummaddan ay arkaan shacaa'irta dhigaaya oo nabigooda jecel ayay acdaa'da islaamka ayay maaragtay ay ku noqonaysaa. marka waxaa weeye yowmulisnain sidaasaa nabigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam. waxaa kaloo jira xadiis oo maaragtay uu weriyey qays ibnu makhramata oo imaamulbukhaari uu soo saaray saxiixiisa ku soo saaray. qays ibnu makhramata saxaabigaas la yihah waxuu dhahay welidtu ana wa rasuulullahi sala allahu alayhi wasalam caamal fiiliyow dhahay. bal u fiirso, aniga iyo nabiga calayhi salaatu wasalaam sanadka la yidhaha caamulfiil oo maroodiyaashu waktigii abraha ninka la dhihi jiray kacbada uu ku duulay waktigaasaa annaga nala dhalayow dhahay. hadda marka in maaragtay yaa la caddeeyo maalintii nabiga calayhi salaatu salaam uu dhashay iyo sanadka iyo magac uu lahay saxaabigaasaa sheegay. saxaabiga haddou sheegane wax loo baahnaay ayay aheedoo laisxasuusinay aheeday. marka xuska nabiga calayhi salaatu wasalaam ama la xasuusta taariikhdiisa shacaa'ir badan ay taariikhda adduunka soo martay intii nabiga ka dambaysay marbaheeray aheeday. marka waxa weeye waxa meesha mar haddeyba wax shareecada lagu jabaaya aysan ahayn wax wanaag oo khayra laga samaynayo oo shareecada mustaxsan ku ah, kayfiyadu wax ay dhibaato ay iska leedaha ma jirto. marka waxa weeye waa maalin farxadeed. ilaahayna qur-aanka wuxuuna leeyahay a'imo badanoo mufasiriinah oo maaragtay mufasirka weyn oo maaragtay ibnu cabaas iyo maaragtay xabru caalimulumma iyo jalaalusuyuudi iyo rag badan ay ku fasireen aayaddan suuratu yuunus ku jirta qul bifadlillaahi wa biraxmatihi fabidaalika falyafraxuu huwa khayru mima yajmacuuna ilaahi subxaanahu wa tacaala. waxau dhahay ilaahi subxaanahu wa tacaala ilaahay fadligiisa, qul bifadlillaahi wa biraxmatihi, ilaahay subxaanahu wa tacaala fadligiisa iyo raxmadiisa fabidaalika falyafraxuu u dhahow dhahay ummadaada ilaahay fadligiisa iyo raxmadiisa ha ku farxaano. huwa khayru mima yajmacuuna waxaa adduunyahay aruuraayaan adduunya oo dhanay uga khayr badan tahay. rasuulkeena calayhi salatu salaam adduunya oo dhan uu nooga khayr badan yahy calayhi salatu salaam. marka hadda fadliga waxaa lagu fasiray islaamka, waxaa lagu fasiray qur-aanka, wax badanaa lagu fasiray. raxmadda nabigaa lagu fasiray calayhi salaatu wasalaam oo lagu farxaayo. maxaa yeele nabiga calayhi salatu salaam qur-aanka aayad kale ilaahay wuxuu leeyahay wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiina, nebi maxamedow kuma dirin ilaa adigoo caalamiinta naxariis u ah mooye, caalamkaanoo dhamuu raxmad u yahay. marka nebigu waa raxmad, asaguna wuxuu dhahay anaa raxmatun muhdaah, aniga waxaana naxariis ilaahay soo hadiyeyaan ah. marka hadda in maalintaasu saas xasuus ku yeelato oo ummaddana loo sheego oo nabiga waxuu ahaa iyo taariikhdaas wixii dhacay la xasuusiyo oy cilmi ahaan u qaataan waa shay maaragtay oo aad iyo aad maaragtay muhiim u ah. waa shay aad iyo aad mustaxsan u wanaagsan oo u khayra waaye.
marka waxa weeye maalintan oo kale inaan maaragtay alxamdulilaahi naxariista ilaahayna aan rajayno maadaama rasuulkeenu raxmo uu yahay gaal iyo muslima weliba haysta oo ku raaxaysta annagoo muslimiinana min baabi owla ayaan siinahay annagoo hadda doonaynin warar badan iyo wax kale inaan maaragtay samayno waxaan u hambalyayhaynaa dadka muslimiinta oo caalamka ku nool khaasatan dadkeena soomaaliyeed oo muslimiinta ah meel kastoo joogaan ha xasuustaano rasuulkooda calayhi salaatu wasalaam waxa nabiga lala keenay shareecadiisa ha la raaco qofku waxau nabiga calayhi salatu wasalaam xuskiisu wax ku taraa markuu shareecadiisa raaco laakiin adoon shareecadii nabiga aan raacaynin oo nabiga waxa uu la yimid aanan raacaynin hadda iimaankaagaaba wax jara ahaynin laa yu'minu axadukum ow rasuulka calayhi salatu wasalaam xataa yakuuna hawaahu tabacan lima ji'tu bihi rasuulku axadkiin ma rumaysna ilaa markaasi hawadiisa ama rabitaankiisu ou ka raacayo waxaan anigu la imiday marka nabiga calayhi salatu wasalaam anu ixtifaalan ku farxayno waa inaan nabiga raacsannahay shareecada in loo soo naqdaa weeye dadku waa inay nabiga calayhi salatu wasalaam dariiqiisa hadyigiisa ay qaataan kitaabka ilaahay ay ku camal falaan sunnada ay ku camal falaan mooyaane qajajac kaleentood iyo waxba tari maayaan mar haddaad nabiga diintiisa aanu ka tagno oonu ku dhaqmaynin xabad maaragtay waxaan kale nugu tari maayaan dadka muslimiinta oo nabiga jecel inuu raaco ayaa maaragtay maanta farxadiisa ay tahay inta kalena farxad uma noqonayso marka insha allahu tacaala waxaan macnaha la wadaagaynaa dadka muslimiinta oo caalamka jooga khaasatan dadkeena soomaaliyeed inay maanta farxaan inay isku soo noqdaan cadaawada iyo xaqdiga iyo xasadka iyo maaragtay waxyaabaha nabiga lagu khilaafayo oo maaragtay casabiyadu soomaaligu xoog badan tahay iyo dadkan islaynaayo oo maalin walba maaragtay xabadaha isu sita waxa weeye nabigooda ha xasuustaano ilaahay ha ka baqaano ummadda ha u turaano dhibaatada maaragtay ha ka daayaano haddii kaleentood waxa weeye nabigu waxa uu la yimiday hawadoodu ma raacsana ixtifaalna waxba ku dheefi maayaan mar haddaysan shareecada nabiga ku camal filay wax ixtifaal ugu dheefaya ma jirto sababtoo ixtifaalku wax waajiba maahan shareecaduse in lagu camal falo oo maaragtay ummadda la dhowra xurumaatulmuslimiin la ilaalisho waajib waaye marka nabiga calayhi salatu wasalaam in hadyigiisi la qaato ayaa nabiga loogu farxi karaa marka si kaleentood farxad noqon mayso marka insha allahu tacaala waxaan rajayhaynaa inaan maaragtay soo dhoweyno oon ku faraxno maalintan maaragtay rabiicul awal 12 bisha ay tahay iyo intii ka sii dambaysaba mar walba weeye laakiin si khaasa inaan maaragtay xasuus ugu lahaano nicmadaas ilaahayna aanu ka sheekayno ayaanu kaga baahan yahay nabiga calayhi salaatu wasalaam zaminka ayaa ku khayroobay wax kastaa ku khayroobay waqtigii ilaahay uu soo bixiyey xadiiskii abu hurayra uu warinaayey oo maaragtay oo warinaayey imaam albukhaari ku soo saaray saxiixiisa waa tow dhaha rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam bucistu min khayri quruuni bani aadama qarnan faqarnan xataa kuntu min alqarni aladii kuntu fiihi rasuulku quruunta bani aadamka min abuuna aadam adduunkan lisay qarnigu waa 100 sano sida raajixa dad baana mar walba joogay quruunta bani aadamka ku soo noolaay ayuu dhaha rasuulka calayhi salatu wasalaam ayaa midka ugu khayrka badan ha layga soo bixiyey haddii qarni loo soo tiriyo ilaa qarniga anugu aan ku dhashay laga soo gaaro bal fiir hadda nabigu calayhi salatu wasalaam zaminka uu dhashay waa sheegay inuu zaminku ahay zaman musharafa ou ka khayr badan yahay asmaanta kale ayuu sheegay zaminka waxaa ku khayrooba wax kasta wixii zaminkaas ku noolaay waxaa ka mid a ummaddan ummatulmuxameda oo abuuna aadam ka timid oo bani aadamkaa ummadihii kale ka khayr bateen waxayna uga khayr bateen in nabiga calayhi salatu wasalaam ilaahay ka fadilay wax kasta uu ka fadilay zaminka ayaa ku khayrooba rasuulka calayhi salaatu wasalaam wixii markaas joogayoo ilaa qiyaamada ay ka qunta waa ummadiisa ayaa ummadaha uga khayr batay marka bal fiiri markaasi waxaan ku noqonnay inaan ummadaha waa ka khayr badina kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi yow dha ilaahay ta'muruuna bilmacruufi wa tanhawna cani ilmunkar wa tu'minuuna billaah waxaad ahaateen ummatulmuxamedey ummada kuwa u khayr badan oo ilahay koonkan keenay maxaan ku noqonna marka nabiga calayhi salam sababkiisaan ku noqonna sharafta waxaan ku leenna hoon ku helayno waa nabigeenna waxaan sharaf ku heli karayna waa inaan nabiga raacna calayhi salaatu wasalaam taasaan ku helaynaa maxaa yeela ta'muruuna bilmacruufi wa tanhawna cani ilmunkar macruufkaa isfaraysaan munkarkan waa iska reebaysaa
haddaa waxaa weeye munkar aan isfarno oo macruufka aan iska reebno oo bilcagsi arrinta laga dhigo oo dadkii munkaraadka isugu kaalmayhayaan macruufka ay ka tageen ma ahan sifadii maaragtay noola ku ammaano ma aha. marka waxaa weeye ixtifaalkan sharafow noo yahay waxa weeye ummatul maxamed inaan nahay oo dadka tusino kuwa aan nabiga rumayn ayay xumaan ay maaragtay ku tahay maaragtay niyajab looga dhigo waa wanaag weeye. laakiin annagana waxaana hor yaala inaan wixii sifaadahoo noola ku sheegay aanu ka soo baxno. waxaan khayr ku yeelana maxay tahay ilaahay waa cileeye ta'muruuna aawa macruufkii la isfarahay aawa munkarkii la iska reebaaye. marka haddii taas la waayo hadda khayriyadu meesha waa ka baxaysaa, sababtoo ah rasuulka waxaad khayrkiisa ku heli kartaa markaa asaga raacdad ku heli kartaa. marka intaan kaliya arrintu ma ahane waxaan leenahay shareecada islaamka aan ku camal falno. soomaalida khaasatan ilaahay ha ka baqdo, waxyaabaha khuraafaadka ah oo waxba taraynin oo diin la'aanta ha laga haro. markaasaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam rasuulkeenni oo aanu raacnay oo intifaac ka helayno oon ziyaado ku helayno oo ay noqoto inaan nicmada ilahay ku shugna markaasay noqonaysaa. laakiin wixii intaas ka soo hara haddaan samayno oo magaca kaliya iska seena islaamka laa yanfac, waxba tari maayo. taas ha loo fiirsado waxa nabiga calayhi salatu wasalaam lagu jeclaahay ha loo fiirsado. maxabada nabiga calayhi salatu wasalaam waajib waaye. marka hadda mawduuc oo maaragtay haddee nabiga calayhi salatu wasalaam wax laga goyi kara ma jirto. misqaala darati hal sifo oo min sifaati ah ayaa adduunkan oo dhammaa ka weyn. marka waxaa weeye tambiihay naga tahay intaan. marka intaasaan kusoo koobaynaa annagoo maaragtay insha allahu tacaala bil kale oo dhalato sanad dambe ku jirta insha allahu tacaala khayr iyo sameeye siyaadaya khayr ilahay nagu gaarsiiyo. soomaalidana ilaahay subxana wa tacala qulubta allah u dahiro, dhibaatada iyo mashaakilka allaha ka qaado, nabigooda allaha ku aadiyo sida uu jecel yahay. insha allahu tacaala waxaana ilaahay ka rajayhaynaa inaan maaragtay dad midoobay oo khayr ku wada socda ilahay naga dhigo. hada wabilahi towfiiq. wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.